laakiin inta la abaabulo in dad meel lagu ururiyo oo lagu yiraahdo maxaa ku raahdaa halka ka hadla taas ma soconayso qorshahaasi waa sidoo u fulay wax ka soo noqonayaan ma jiro sharci iyo xeer buu ku fulay xeer 17 qofka ku xadgudba ee isagu yiraahdo sharcigan maxaa ku raay gacmaha ku qaadanaya hay'ada sharci oo shaqadooda haysta jira kuwaas la tiigsanaya isku duwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta gobolka Awdal Mudane Saleebaan Aadan Samatar oo maanta xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay hadal maalinnimadii shalay ka soo yeedhay qaar ka mid ah bulshada kuwaas oo sheegay in ay dib ugu laabanayaan dhulkii hore looga fuliyo qorshe magaaleedka ama master balaanka isku duwaha Saleebaan waxa uu sheegay in qorshahaas uu yahay sidoo uu fulay waxana uu taasi bedelkeed uu ku hanjabay cidii ka hor timaada ay sharciga la tiigsan doonaan darteed magaalada Boorama waxay un ka mid tahay magaalooyinka laga furiyo qorshe magaaleedka maxaa ku dhacday ay wado wasaaradda hawlaha dhulka iyo guriyeynta iyadoo la kaashanaysa dawladaha hoose ee degmooyinka ay ka fuleen iyo kuwa ay ka fuli doonaan iyadoo oo runtii taasi aniga oo maxaa ku dhacday tixraacaya waxa shalay hadlay dad ka cabanayay maxaa ku dhacday master balaankaasi oo si negative maxaa ku wuxuu sheegay horta kulay dadku waa dadka yagii haddii qorshe la fulinayo qorshahaasi mid togan iyo mid taban labadaba uu yeelan karaa laakiin waxa laga eegayaa mustaqbalka ubadkeena iyo inaanay magaaladani sida hadda ay tahay aan lagu daawan karin inay ku fido meelaha qaar kood meedka lagama saari karo wadooyinka ku yaal gaarigu ma geli karo wadadan oo sikad oo gaarina aanu geli karin meedna aan laga saari karin inay Boorama inta ay maanta leeg tahay saddex laabkeed ku gaadho wax suurta galay ummadda dawlad baa ka mas'uula dawladda u talinaysa wixii u wanaagsan ee mustaqbalka ubadkooga iyo magaaladooda u wanaagsan cidda mas'uuliyadda u haysa ayaa u fulinaysa cid alla cid looga habranayaana ma jirto dadweynaha wixii taag daran ee arintaasi taabatay dawladoodii bay hoos joogaan xafiiska iman karaan qoraal bay keeni karaan laakiin inta la abaabulo in dad meel lagu ururiyo oo lagu yiraahdo maxaa ku raahdaa halka ka hadla taas ma soconayso qorshahaasi waa sidoo u fulay wax ka soo noqonayaan ma jiro sharci iyo xeer buu ku fulay xeer 17 qofka ku xadgudba ee isagu yiraahdo sharcigan maxaa ku raay gacmaha ku qaadanaya hay'ada sharci oo shaqadooda haysta jira kuwaas la tiigsanaya shacabka waxaan leeyahay wixii wanaagsan baa idinkana daniniya dhinaca kalena isku duway Saleebaan hadalkiisa waa uu sii watay waxana uu ka waramay kormeel ay shaqaaluhu ay ku soo sameeyeen wadooyinkii laga fuliyay master balaanka waxana uu yidhi waxa kale oo jecelahay inaan halkan saaka waxa kormeer soo sameeyay unuga heeganka danta guud unug la yiraahdo wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee ay leedahay oo dhammaan gobolada dalka oo dhan ka jira gobolka Awdalna ka jira unuga heeganka isaga oo awalba shaqadiisa hore u haystay aroor walbana soo kormeerayay wadooyinkii master balaanka ama qorshe magaaleedkii Boorama ee hore loo fuliyay imikana waxay amar ku qabaan inay shaqadooda sidii caadiga ahayd iskaga wataan qofkii sharciga ku gudbana sharciga la tiigsado qodobka kale aan jecelahay in dul istaago waxa weeye maalinta dhaweyd ee wasiirka wasaaraddu yimiday magaalada Boorama wuxuu ka hadlay in faylashii la keenayo maxaan ku dhahay dawladda hoose
waxaan jecelahay halkaa dadku aada umay fahmin inaan aada ugu caddeeyo faylasha dadka qaarkood oo waxaa jira jagadii ay maxaa ku dhahay waddan ka martay haafna ay ka martay haafna u hadhay ama wax haaf ku dhowi u hadhay qofkii jagadiisii wax u hadheen ee halkii u yaalaano faylkaagii baad soo qaadanaysaa waxaad la imanaysaa maxaa ku dhahay dowladda hoose waxaa jiri doona xafiis la yidhaahdo hubinta naqshadaha oo wasaaradda howlaha guud isaguna ka tirsan oo xafiis looga sameeyey dowladda hoose labadaa xafiiska wasaaradda ee dowladda hoose laga sameeyey oo xafiiska hubinta naqshadaha la yidhaahdo iyo maxaa ku dhahay xafiiska dowladda hoose ay isla eegi doono qofkaasi jagadiisii wixii meesha ugu hadhay kaana waxaan jeclahay inaad sidaa u fahantaan